ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sacad ibnu Mucaad radiyallahu anhu waxa uu soo islaamay isagoo 30 jir ah, waxa uuna dhintay isagoo 36 sano jir ah. Markii uu dhintay maalintii Yawm Khandaq waxaa samada ka soo degay 70,000 oo malaa'ig ah si ay ugu qayb qaataan geerida Sacad ibnu Mucaad. Muxuu ku sameeyay Sacad 6 sano ilaa ay samada kaga soo daadegaan 70,000 malag oo aan weligood ka soo daadegin samada si ayna uga qayb qaataan janaasada Sacad ibnu Mucaad. Jibriil alayhi salaam ayaa u yimid nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ku yiri waxaa dhintay xalay mid kamida asxaabadaada, dhimashadiisa darteedna waxaa u gariiray Cashur Raxmaanka. Insha Allah muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa Sacad ibnu Mucaad. Waa Sacad ibnu Mucaad ibnu Nucmaan ibnu Imru'ul Qays ibnu Zayd, waxaana lagu naaneysaa Abaa Camar. Hooyadii waa Kabsha ibnu Raafic ibnu Mucaawiya ibnu Abjar. Xaaskiisuna waxa ay ahayd Hinda ibnu Samaatik ibnu Raafic ibnu Caatiik. Waxa uu dhashay Sacad ibnu Mucaad 19 sano ka hor inta aan nabiga la soo saarin, wuxuuna nabiga sallallahu alayhi wasallam ka yar yahay 21 sano. wuxuuna ku soo islaamay gacantii Mus'ab ibnu Umayr radiyallahu anhu. Islaamnimadiisa iyo diinta markuu uu qaatay wuxuu ahaa 30 sano jir. Geeridii Sacad nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aad ayuu ugu murugooday. Tuwalbo baroorata baroorteeda waa been, waxaan ka ahayn Sacad hooyadii, ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday Sacad. Aisha radiyallahu anha markay ka waramaysay Sacad waxay tiri reer Bani Abdil Ashhal 3 nin baa ku jirtay oo qof ka qiimo badanna uusan ku jirin. Sacad baana ku jiray 3 nin. Al-Imaam Ibn Hajar markii uu ka waramayay Sacad ibnu Mucaad wuxuu yiri islaamnimada dhexdeeda wuxuu ahaa dadkii ugu barakada badnaa ee wax badan soo kordhiyay. Sacad ibnu Mucaad markii uu diinta qaatay wuxuu aaday jifadiisa oo uu ka dhashay. Wuxuu ku yiri ragiina iyo dumarkiinaba la hadli maayo ilaa Ilaahay iyo rasuulkiisa aad rumeysaan. Reerkiisii dhanna waa ay soo wada muslimeen. Sacad ibnu Mucaad waxa uu dhintay isagoo 36 sano jir ah, waxa uuna u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Yawmul Khandaq. Gabagabadii halkan kuma soo koobi karno qisada Sacad ibnu Mucaad, Allah ka raali noqdee.